kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Kenya iyo danjirahaba looga mahadcelin lahaa hawlaha adag ee ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku dhaqan aqoon-yahano mas'uuliyiin hooyooyin iyo ururada bulshada rayidka ah iyo ardayda jaamacadaha Nairobi oo kulanka ka soo qayb galay ayaa goobta ku soo bandhigay wax qabadka muuqda ee la taaban karo ee safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay had iyo jeer la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed dadka goobta ka hadlay ayaa xusay in danjir ambassador Maxamed Cali Nuur Ameerika iyo guud ahaan shaqaalaha safaaraddu ay habeen iyo maalin shacabka Soomaaliyeed ugu dadaalaan sidii ay xuquuqdooda u heli lahaayeen waxa soo kale kulanka laga sheegay in safaaradda Soomaaliyeed iyo danjir ambassador Maxamed Cali Nuur Ameerika ay ku guuleysteen in la soo celiyo dhulkii safaaradda Soomaaliyeed ee sanadkii 1994 sifada sharci darrada lagu kala iibsaday safaaradda Soomaaliyeed oo taageero joogto ah had iyo goor la karab taagan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dhadhaab iyo waliba Kakuma iyo sidoo kale safaaradda Soomaaliyeed oo taageero joogto ah siisa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa jaamacaduhu ay ku xiraan shuruudo cadaynaya dhalashadooda iyo waliba sugnaanta shahaadooyinkooda waxa sidoo kale munaasabada dadkii ka hadlay ay sheegeen in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ku garab istaagaan ambassador Maxamed Cali Nuur Ameerika iyo sidoo kale guud ahaan shaqaalaha safaaradda sidii loo sii laabi lahaa shaqada adag ay safaaraddu u hayso jaaliyada iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan anigayga idin la hadlaya waxaan ahaa dadkii qaxootiyada u gurbaday amaan kuma doonayo waajib saaran bay ahayd arintaas diyaaraddan wada raacnay Maxamed Cali Nuur Ameerika isaga oo dhaawac ayaanu diyaaradda wada raacnay xiriya qaxootigaanu tagnay Dhadhaab waxaanu soo qaybinay raashin magac doonid kama yahayn ee waxay ka ahayd shaqadiisa inuu guto isagoo dhaawac wada gutay waana ku mahadsanyahay taas waxaan hadalkayga ku gabagabeynay waan ku soo xiraya safaaraddan Soomaalida ay ku leedahay Nairobi oo hormuudka ka yahay Maxamed Cali Nuur Ameerika markii aan miisaamay safaaradda Afrika ku yaal waxaanu garanay haddaanu guddiga ganacsatada anigoo ku hadlay afkooda xogayihi ah inaanu siino humanitarian award gaar ah shaqada ay qabteen darteed waanu la siin doonaa insha Allah taala waqti dhow waana waqtiga safaaraddeennii haddii Ilaahay yiraahdo waraaqda sabarloogada la soo wareejin doono oo xafladda lagu qaban doono safaaraddeenu cusbayd inaad ka soo qayb gali doontaan waa rajaynaya insha Allah taala anigu intaan ogahay waa safaaradda iyo safiirka ugu shaqada badan dadka taageeraha aadka u taageerada badan ma yihiin dadka xaqiiqatan anigu waxaan ahay marka harin la fiirsho ma jeceli in aan wax iska taageero dadka safaaradda ku xiran ma yihiin macna dad baa jira qofku markuu meelaha ku laalaabto inta badan waxa laga yaabaa inuu ammaan iyo jecel yahay oo leeyahay bari aad tagti anigu hadii hawl iga soo gasho Soomaalidaas aan la mid aha hawsha Soomaalida ula simanaha laakiin intaan ogahay waa safaaradda iyo safiirka ugu shaqada badan intaan ogahay wixii aan ogayna xilbayga ma saarna waxaan ku soo gabagabeynayaa adduunka oo dhan waxa ka batay wax la dhoobeen hawaas balaayo dad baa jira been dadka u akhriya oo mushkilad ah oo wax alla waxay ka wadaan aan la aqoonin oo markaas laga yaabo qofkii wanaagsan inta la xumeeyo suura xun in loo yeelo qof xunna in suura wanaagsan lagaaga dhigo waana wax adduunka qaribay waxyaabaha aad loo xusuusan karo waxa kamid ah oo wala taabanayso maanta iyagoo ku shaqeynaya group ahaan ugu horeeyo Maxamed Cali waa dadka mar walba u taagan haday Soomaalida degan Kenya ay dhibaato ku yimaadaan ama waxyaabo ay maaragtay iyagu markaas ay qabsan karin oo ku yimaadaan waan ku mathala hadii ay noqoto meelaha dadka Soomaalida ay ku badan yihiin hadaan ka soo qaado xiriyaha qaxootiga oo dadka noogu jilicsan ay degan yihiin waa ninka maalin walba kor taagan taga waana safiirka kaliya ee qaxooti Soomaaliyeed adduunyada waa ku faafsan yihiin ilaa Yurub Ameerika meel walba laakiin ma ku xiraysan laakiin kuwa Kenya waxay ugu duwan yihiin waxay ku jiraan meel qaxooti go'an kaligood u go'an waa ninka kaliya kor istaaga wallahi cala Ameerika anu waxaan qabaa safaaradaha Afrika qaybaan arkay Kampala aan arkay waxaan arkay Tanzania safaarada badan Afrikaan tagi doon badan Afrika sidoo u shaqeynaya ama juhdiga ugu dadaalaya wallahi ma arkin cid ugu dadaashay ama cid isku xil saaraysa
dalka iyo danta iyo dadnimada loo soo jeesto waxaa looga soo jeesayaa maxamed cali Ameerika waa indhaha qaranka halka degan inta uu kaafiyay inta uu qabanayana wax qabtaa ma jiraan waxa hunguri doona oo ordaya oo dabtalo mooyaane walaa maxaa daydaysaa waxa adiga alla ka soo qaday anigana isoo gaadhin buu waxaan inagu aynaan haynin buu daydayaan ninka maxamed cali maanta wax ka sheega wuxuu san hayn bay daydayaan safaaradii bi soo celiyay maatooyinkii buu ururinaya qaxoontigii buu gad walba ugu tagaya halkan maalintii u dambeysay soontii aqal walba raashinka iyo gaariga la geeyay maxamed axmed ilkacaase telefishinka qaranka Nairobi